السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshada reer Somaliland gaar ahaan ardayda Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ugu bishaareynaa in wasaaradda waxbarashada ay deeq waxbarasho soo hore u maqasheen ay ka heshay dalka Itoobiya. deeqda waxbarasho laba qaybood u qaybsanayd 80 arday oo waxbarashada heerka labaad ah ama master degree-ga ama post graduate-ka waxa runtii maamulaysa oo gacanta ku haysa markaa guddiga tacliinta sare ee qaranka ee dhawaan madaxweynuhu aasaasay. waxaa kale oo jira markaa 370 arday oo shahaadada heerka koowaad ah ee bachelor degree-ga ku soo baran doona dalka Itoobiya jaamacadihiisa kala duwan oo ay maamulaysa markaa wasaaradda waxbarashadu oo gudoomiye ka yahay markaa xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guddi kale oo wasiirka u saaray. fursadaas waxaa la siin doonaa runtii ardayda reer Somaliland iyadoo tixgelintii mudnaanta la siin doona markaa ardayda aanay goobaha ay degan yihiin ama wax ku bartaan aanay jaamacada lahayn deegaamadoodu, ardayda kaalmaha sare darajada sare ku baasay, ardayda waxaa iyagana laga qaadi doonaa markaa imtixaan professional test ama qiimeyn oo ardaygii shahaadada ku sitay darajada sare waxaa mar labaad laga qaadi doonaa markaa qiimeyn iyadoo la qiimeynayo markaa fahankiisa luqadda ingiriisida maadaama waddan shisheeye wax kusoo baranayo iyo xisaabta. labada qodob runtii ka soo baxay warbixin inay la wadaageen safaaraddeena Itoobiya iyo qaybta waxbarashada caqabadihii ka hor yimi ardaydii tegay sanadadii hore cilmi baaristii laga sameeyey labada maada runtii inay ardayda qaar aanay ku fiicneen markaa si dib loo qiimeeyo ardaygii darajadiisana ay sarreysay laakiin la hubiyo inuu luuqadana fahansan yahay si arday kale aan uga khasaarin markaa fursaddaas. markaa hawshaas si dhaqso ah habraaceeda iyo faahfaahinteeda iyo nidaamkeeda waa lala soo wadaagi doonaa. waxaa kaloo runtii fursadda ka faa'iideysan doona ardayda markaa iyaguna akhlaaqdooda la hubiyey akhlaaqdooda wanaagsan tahay. ardayda la hubiyo markaa ama la soo caddeeyo inay akhlaaqdooda xun tahay ama dugsiyada ay wax ku bartaan dhibaateeyey ama macallimiintooda dhib u geystay, ardaydaas runtii ma heli doonaan fursadda deeqda waxbarasho scholarship-ka ma heli doonaan. arday kasta ay ku caddaato oo ay soo caddeeyaan markaa laamaha ammaanka ama goobaha waxbarashada ay ka tirsan yihiin iyo gobolladii degmooyinka ka tirsan yihiin ay qoraal ku soo caddeeyaan akhlaaq xumadiisa ay guddiduna markaa aqbasho wuxuu waayi doonaa markaa fursadda deeqda waxbarasho waayi doonaa. waalidka iyo ardaydana waxaanu runtii halkan dardaaranka noga diraynaa tahay ardaygu akhlaaqdiisu waxay qayb weyn ka tahay markaa waxbarashadiisa iyo horumarkiisa iyo noloshiisa. marka ardayga akhlaaqiisana ka wada shaqeyno si ubadka inoo soo baxaya ay markaa u noqdaan ubad anfaca qaranka Jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan. aad iyo aad baa mahadsantihiin. waxaa kaloo la shaqaalaysiin doonaa runtii dhowaan 300 oo macallin oo wasaaradda waxbarashadu ay sanad ka shaqaalaysiin doonto. 300 macallin waxaa mudnaanta la siin doonaa markaa dugsiyada aanay macallimiintoodu gunaysnayn baa mudnaanta la siin doonaa iyadoo markaa wasaaraddu isbarbar dhigi doonto tirada dugsiga ardayda dhigata, tirada macallimiinta joogta, inta gunaysan inta aan gunaysnayn, ratio markaa ama saami cadaalada ku salaysan ayaa runtii lagu soo saari doonaa. si furan oo dah furanna waa loo soo baahin doonaa oo loo soo xayeysiin doonaa lala wadaagi doonaa markaa dhammaan guddoomiyaasha gobollada, guddoomiyaasha degmooyinka waxbarashada, guddiyada waxbarashada kala duwan iyo ilaa heer dugsi oo ilaa maamulaha cid kasta markaa habraacayo nidaamka la marayo xafiiska shaqaalaha wasaaradda waxbarashada markaa uu nagu horkici doono. aad iyo aad baad mahadsantihiin.